wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo wehelinayo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Soomaaliland Saciid Sulub Maxamed iyo maamulka gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco ayaa kormeer kala duwan ka soo maray goobaha kala duwan ay ka socoto diiwaangelinta qaadashada kaarka codbixiyaasha ee gobolka Togdheer. wasiirka iyo maamulka gobolka Togdheer ayaa mid u dul istaagay sida habsamida leh ee gobolka ay uga socoto Togdheer diiwaangelinta codbixiyaasha. markii uu soo dhamaaday kormeerkaasi ay ku marayeen wasiirada wasaaradaha xanaanada xoolaha iyo arrimaha guduhu goobaha kala duwan ay ka socoto maalintii labaad diiwaangelinta qaadashada kaarka codbixiyaasha, waxa ay si wada jir ah warfidiyanada ay kula hadleen xarunta jaamacadda weyn ee magaalada Burco iyagoona ka warbixiyay sida ay gobolka Togdheer uga socoto maalintii labaad diiwaangelinta qaadashada kaarka codbixiyaasha. annagu saaka kormeer baan ku gala bixinay gobolka Togdheer magaalada madaxdiisa Burco daamaheeda kala duwan. waxaan soo aragnay shaqada si fiican u socota, dadku si wacan isu diiwaangelinaya. waxa la yiraahdaa wixii caadiga ahaa dhaliil ahaa ee jiray meel qarabka yar xumaada iyo meel biritirka xumaada iyo waxaas commissionka asagoo warhaya annaguna waan ku xoojinay dareenkayagii. dadkuna si wacan oo niyad sami ah bay isu diiwaangelinayeen. waxa quraha aan ku buurinayna waxa weeye dadka aanu leenahay marka hore waxa haystaan waa 4 casho, 4tiina casho ka faa'iideysta hal isdiiwaangeliyo. diiwaangelinta waxa weeye waxa dadka isdiiwaangelinaya dadkii aan hore isu diiwaangelin iyo dadka qaan gaaray. wixii inta ka duwan ee kaar bedel ah ee kaar lumay ah qof doonaya inuu gobolkan uu joogo muujiyo meel kale ka qaatay oo ka bedesho waqtigeeda ay leedahay. waxaanu helay dhaliiraha odhanaya dadkii oo kaararkii hore haysta inay galeen dabadna labadii kaarba ka gubteen. waxaan uga digaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba qof kaar leh inaanu toos u gelin oo kaar laba isku day inuu qaato. waxyaalaha jira waxa weeye goobaha haddaanu soo marnay in dad badan codkoodii gubtay oo ay khilaafeen nidaamkii loogu talagalay diiwaangelinta. waxaana loogu talagalay marxaladda u dambaysa oo waqtigeedu uu badan yahay oo dhowr iyo 10 maalmood uu yahay inay dadku markaa kaar bedelka iyo maxaanku dhahdayay meesha uu doonayo codkiisa inuu ula guuro. hadduu codkiisa doonayo inuu maanta Burco ka qaado oo meel kale uu tago codkiisa geysto oo ka tashado. dadka waxaan leenahay nidaamka la raaco. waxaan leenahay degmooyinka iminka uu ka socdo diiwaangelintu ceelafweyn Garaadag Oodweyne Caynaba Burco Buuhoodle in intaba xoog la saaro oo ay dadka muwaadiniintii codkooda ay dhiibtaan. kormeerkani ay ku soo mareen wasiirada wasaaradaha xanaanada xoolaha iyo arrimaha guduhu goobaha kala duwan ay maalintii labaad sida habsamida leh uga socoto diiwaangelinta qaadashada kaarka codbixiyaasha ee gobolka Togdheer ayaa ahaa mid ay ugu kuurgalayeen sida ay uga socoto shaqadu goobahaasi. Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, wararka telefishinka Ariel magaalada Burco.